dalka Yemen waxa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Yemen waxa uu ku yaalaa galbeedka qaaradda Aasiya waxa uu ka mid yahay wadamada la isku yiraahdo dunida Carabta dalkan oo juqraafi ahaan dhacda koonfureed ee jasiiradda Carabta waxa uu xuduud la leeyahay Sacuudiga Badda Cas gacanka Cadan Badda Carbeed iyo Cumaan waxaana loo aqoonsan yahay dalka labaad ee dalalka jasiiradda Carabta ugu dhulka weyn calanka dalka Yemen waxa uu ka kooban yahay midabada casaan cadaan iyo madow siman tirada dadka Yemeniyiinta waxa lagu qiyaasaa in ka badan 27 milyan oo qof caasimadda dalkaas waa Sanca waana magaalada ugu weyn caasimadda labaadna waxa la yiraahdaa Cadan waxaana dalkan ku yaala qiyaastii 200 oo jasiiradood marka Yemen la joogo gaadiidku waxa isku dhaafaan dhanka midig lacagta dalkaasna waxa la yiraahdaa Yemeni Riyaal luqadda rasmiga ah ee dalka waa afka Carabiga diinta dawladdu aqoonsan tahayna waa Islaam dalkan oo taariikhyahanadu ay sheegaan in waagii hore loo aqoon jiray al-Yemeniyaad waxa uu xiriir ganacsi la lahaa dalal ku yaala geeska Afrika wadankan waxa uu caalamka ku leeyahay taariikh fac weyn tusaale ahaan mar waxa ka talin jirtay boqoradii Balqiisa oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba boqoradan ayaa waxa ay nooleed xilligii Nabi Suleymaan waxa ay ahayd boqorad awood badan oo xilliga ka talinaysay dhul ballaaran oo ka mid ah Yemen boqoradan ayaa waxa lagu sheegay taariikhdeeda Quraanka Kariimka oo sooyaal cajiib ah u dhaxmaray boqorkii awoodda badnaa nabigana ah ee Suleymaan calayhi salaatu wasalaam dalkan ayaa sidoo kale waxa xilliyo kala gedisan soo maamulay imaaradihii kala gedisnaa islaamka iyadoo ay ugu dambeysay boqortooyadii islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta dhanka diimaha markuu aanu eegno wadankan dadka ugu badan waa muslimiin sunniyiin ah oo lagu qiyaasa 56.3% inay yihiin bulshada guud ee dalka Yemen shiicada gaar ahaan qaybta Yaziidiyada 42% ayay iyaguna yihiin qaybta Ismaaciiliyiinta iyaduna waa 1.5 inta soo hartayna waxa la sheegay inay diimo kala gedisan haystaan oo ay ka mid tahay Nasaarada iyo Yuhuudda marka laga hadlayo dhaqanka dadka Yemeniyiinta gaar ahaan dharka rag waxa ay xirtaan macawiis ama hoos gunti qaybta sare ee jirkana waxa ay ka qaataan shaati iyo cimaamad madaxa lagu duubanayo sidoo kale waxa dalkan dhaqanka in raggu ay ku hubaysnaadaan toorey taas oo muujinaysa in qofku mar walba dagaal diyaar u yahay dhanka dumarka marka aanu eegno waxa ay xirtaan dharka caadiga ah ee asturan oo ay qaataan gabdhaha ku nool guud ahaan dunida islaamka Yemen ayaa waxa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada sida weyn uga jirta qabyaaladda waxaana dalka ka jira kooxo u abaabulan habbeeleed oo haysta hub fara badan waxaana had iyo jeer dalka ka dhaca dagaalo u dhaxeeya maleeshiyo isu dirirayso qaab beeleed dadka wadankan waxay aad u cunaan magandooriyaha qaadka waxaana qiyaastii dhawaan la sameeyay lagu sheegay in 90% rag u dhashay wadankan ay yihiin muqayyiliin qiyaastan ayaa sidoo kale lagu sheegay in 4 dumar aba ay mid ka mid ah qayiisho wadankan aanu ka hadlayna ee Yemen waxa uu ahaan jiray laba wadan oo ay kala haysan jireen labada boqortooyo ee Cusmaaniyiinta iyo Ingiriiska horaantii qarnigii 20aad markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee dunida waxa la aasaasay dalka la oran jiray waqooyiga Yemen sanadkii 1967 waxa la sameeyay dalka kale ee koonfurta Yemen labada Yemen ayaa la mideeyay 22 bishii May sanadkii 1990 waxaana madaxweyne ka noqday Cali Cabdalla Saalax oo sanadkii hore lagu dilay weerar ka dhacay magaalada caasimadda ee Sanca Cali Cabdalla Saalax ayaa ka hor inta uusan xilka ka degin sanadkii 2012 waxa uu dalkaas maamulayay in ka badan 20 sano balse banaanbaxyo xoogan oo lagu diidan yahay xukunkiisa ayaa soo dadajiyay inuu isaga tago xukunka uu haayay isagoo dalka aanu ka bixin markuu xilka ka degay wixii xilligaas ka dambeeyay dalku waxa uu galay xaalad dagaal oo kooxda Shiicada ah ee Xuutiyiinta ay inta badan qabsatay dalka Cali Cabdalla Saalax qudhiiso waxa uu Shiicada siiyay awood ugu badan ay ku qabsadeen dhulka aan tirada yareen oo ay maanta gacanta ku dhigeen balse ciidamada Xuutiyiinta waxa ay ku guuleysteen inay kala furfuraan ciidamada awoodda badnaa ee uu Saalax dhowr sano ka hor kula biiray kooxda Xuutiyiinta kooxdan ayaa waxa u suura gashay inay qabsadaan 45% dhulka guud ee dalka Yemen wadankana ay ka cayriyaan madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay ee Cabdirabbi Mansuur Al-Haadi oo sanadii u dambeeyay dibad joog ahaa bishii September sanadkii 2014 kooxda Xuutiyiinta ah ayaa qabsaday caasimadda dalka ee Sanca waxayna ku dhawaaqeen inay iyagu dalka maamulaan taasi oo waxay keentay in dawladaha khaliijka faragelin ciidan ku sameeyaan dalka taasoo keentay in xanibaad la saaray ay saameysay 17 milyan oo qof oo Yemeniyiin ah
dagaalada bariga iyo duqeymaha cirka kala hogaaminayaan Sacuudiga iyo Iiraan waxay dalka Yemen ka dhalisay xaalad bini'aadanimo tii ugu liidatay iyada oo dhawaan warbixin ay qaramada midoobay soo saartay lagu sheegay in dalka ay ka jirto macluushii ugu xumeyd dhawaanahan ee soo marta caalamka iyada oo dhanka kale la sheegay in 25 milyan oo qof ay ka kooban yihiin dadka Yemeniyiinta 20 milyan oo kamid ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah